ودنك مريكان كبري أنا كو جوجنو جماعة هيا لنو شيغنين ري سوماليا أو مساجد كمال 40 كيلومتر لو جيرو أيو ku nool yahay ninkii baa la noo geeyay daadiisa waxaan ku qiyaasayna 65 jir waa Umar al-Ghalib ki umadu ku jira ninkaas jamaacadii baan uga waranayo una soo raaco jamaacadii buu yimid markaa jamaacadii oday nala socday iswareysteen mid qaraabadiisa isgarteen ila Soomaalidu waa iska wada ehel weeyane hal qoys baan iska wadanahay markaas uu barigi dawladda maxaad ahaan jirto deenan caynkaas oo agaasimo caynkaas oo Russia wax ka soo barto wuxuu oo dakaalay marba hadaad aqoon marka horeba aqoonyahan aad ahayd oo Russia aad wax ka soo baratay oo dalkii markii dawladdu ay jirtay nin madaxa aad ahayd halkan hadda markaa timid maxaad ka shaqaysaa bal noo sheeg waxba kama shaqeeyo halka shaqo la nooma dhiibanaye markii shaqo la noo dhiibi waayo aqal yarna waa la nasiiyay xogaha yar oo cayd oo dadka qaxootiga la siiyo raashinna waa la nasiiyaa dawayar dhakhtar yar oo kaar yar oo caymis oo dhakhtarada aan isku daweynana waa la nasiiyay markaan waxaan qabta aan waayay buu yiri ayaan jaamacad iska galay buu yiri waa imsajirna waa imsajir waa 65 jir markaasaan ku nidhi 65 jir haye maxaad barataa bal sheeg ila marka horeba nin aqoon lahayd wuxuu yiri xiriirka dawladaha dariska ka dhaxayaan bartaa buu yiri labada wadan ee dariska ah xiriirka ka dhaxaya ayaa markaas lagu yiri xiriirka adiga iyo Ilaahay niga dhaxaya waa sidee baa lagu yiri wallahi miskiidka axadi baan imaaday wada xadi yoom la xad ila wadanka xada la fadhiya moogtay weekendiga sabtida xada markaas lagu yiri hadaana adoo 65 jir imsa cimrigaaga ku hadha ma garan kartaa ma garan karo waxaad rajo ka qabtaa wadankii intuu nabad noqdo adoo aqoontan biirsaday inaad ku noqoto Soomaaliya ha ma laga yaabaa inaad gaadha ma laga yaabaa Allahu a'lam buu yiri waxa la xiriirka Ilaahay adiga niga dhaxaya hadana waa sidee aad buu u liitaa buu xiriirkaas oo salaadahaygii baa iska abuuri maartana galab baran tukado maran daayo waxa xiriirka hadaba adiga iyo Ilaahay niga dhaxaya professorada jaamacadan inii dhiga ma yaqaanaan buu yakuna waxa la hadaad adiguna xiriirka aanad baranin Ilaahay adiga niga dhaxaya professorada jaamacada ku dhigan xiriirka bini aadanka iyo Ilaahay ka dhaxaya hadaynan aqoonin waxba ma taqaanaan zero batin bal lagu yiri madaxu qabsaday ninkii waan hoynay gurigiisii baa ku celinay subaxdii dambu nagu soo kalahay wuxuu hadalkii aad shalay galabtii itiraadeen waa ka seexan waayay buu xalay toole 10 maalmood baan raacay alaabta ay qaaday jaamacadii soo raacay شوف waxaan ka wada xiriirka innaka Ilaahay naga dhaxaya haduunan meesha jirin waxaad aqoon leedahay waxaad baranayso iyo waxaad dhaqaale aad haysatay iyo waxaad darajadii awood aad leedahay waxba kama jiraan ugu waxa Ilaahay bini aadanka ku sharfa ee bini aadanka Ilaahay ku qiimeeya ee bini aadanka Ilaahay ku jeclaada ee bini aadanka kale ay ku jeclaadaan waa Ilaahay cabsidiisa iyo dabiicada wanaagsan waa labada nabi maxamed markii la weydiiyay la yiri amalka ugu badan ee dadku jannada ku galaan noo sheeg wuxuu taqwa Allahi wa husnul khuluq ba nabigu yiri amalka ugu badan ee dadku jannada galideeda ay ku mutaystaan waa Allah ka cabsiga iyo dabiicada wanaagsan amalka ugu badan ee dadka ugu badan naarta ay ku galaan nabigu yiri waa arabka iyo awrada rasuulku yiri ikhwani wala layaal dhalinyaratihiin awlaadaydii baad ladaatihiin waqti fiican waad haysataan waxbarashadana ku dadaala laakiin diinteena ku dadaalna amal ku dhaqankeyga diinteena barashadeedana ku dadaalno adoo maad cilm maadiga dhiganaya cilm sharcigana baro adoo cilm maadiga dhiganaya quraanka ilaahayna xafid waliba cilm maadiga maanta dadku ay dhiganayaan waxa uu dadka ka dhaadhicinaya wax walba waa naatiir wax walba wadi fahmaysaa ma noolayn wax walba waa natural tabiici xanuunkan imika adduunka yimid baa lagu waa tabiici
duufaan baa yimid waa طabiici dhul baa gariiray waa طabiici saasay ku odhanayaan gaaladu laakiin طabiici maaha quraanku waxa uu leeyahay wax طabiici ma jire allahu khaliqu kulli shay walba ayaa abuuray ilaahay baa abuuray waa cilmigan maadiga ee maanta dadkeenu ay dhiganayaan meelaha quraanka uu ku khilaafsan yahay ba kama tahay cunwaankaas aan soo qaadanaya laakiin barashadiisa ma inkarayno iska barta laakiin ha yaqiinsanaan kalsoonidaadu ilaahay ahaato malik bin dinar abu abdullah ayaa habeenada kamida waxa lagu yiri manaam baa lagu yiri manaam kaco masaajidka inaan dhalinyaro ku dhex jiro 3 maalmood cunto aanan cunine qaado cuntada u geey baa lagu yiri waa manaam uu kacay marka sheekhi kolkii witridii tukaday cunto soo diyaariyay masjidkii buu yimiday wuxuu u yimiday nin yaro shaaba oo qaa'im billayl habeenkii sida u taagan oo quraanka ilaahay akhrisanaya markaas uu keenay cuntadii markay wada cunteeyeen ayuu ku yiri aqalkaygu ma fogo laabkan markaad ka soo laabto laabka kale ka wayaan igu kaalay buu markaad cunto u baahato yarkii yara uu xanaaqay sheekh buu ka yiri hore ma adii taqaanay buu may anu maan ku aqaanay maya anu intaan ku imid baahideeda ma ku sheegtay maya xalay adiga oo jiifa kii amarka kugu siiyay inaad kacdood ii soo adeegto cunto aad ii keento ka bariyadiisa intoon dhaaf adiga maan ku imaadaa buu ka yiri anu meel baan aqaana weeyaan meesha wax caalamka meesha laga maamulo ayaan cilaaqo la leeyahay weeyaan adi baahideyda ku imani maayo kuna sheegani maayo baahideyda ilaahay baan u sheegtaa buu ka yiri ilaahay waa ka xalay adoo aan war iga qabin saqda dhaxa amarka kugu siiyay inaad kacdo odii keento cuntada ka baan bariyaa cid kale ma bariyo buu anigu horumarku waa kaas dhalinyarada inay horumarto ma doonaysaan intay maanta dhalinyaradeen ilaahay ku xidhan tahay horumar waa taas waxaan nagu nafteedana aan ugu nasteexaynaya inagana nagu nasteexaynaya ilaahay aan ka cabsano insha Allah dhahada noloshaada adduunyada inay hagaagto aakhiraadana ku hagaagto waxa sees u ah oo Allah ka cabsi الكريمة في بيتك بشارو وشوي haddii barashada quraanka loo gali jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa quraanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada quraanka iyo culumta islaamka duruusta sida taxanaha u bixinayo waxa kamid ah barashada quraanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka quraanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku